siya aniga horta aragaaga way galabtay araga abshir way laakiin waxa qabadkaaga iyo waxa qabatay hawada kala socda mararkii aad ahayd wasiirka arrimaha dibadda wixii aad qabatay iyo wax qabadka Soomaalida u qabatay iyo tidaad ahayd baan la socdaa marka waxa weeye waxaan ka haystaa aniga oo aan hadda aragaaga wajiga galabta igu horyahay aan haddana wax barasho dheer ka haystaa waxyaalaha hadda aan xusuusto waxyaalaha qabatay waxa kamid ah koonfurta markii Juba markii maartay ay ku dadka dagaaladu ka dhaceen dadkii Soomaalida ahaa iyo hantidooda iyagu ay ku go'dooneen dhibaatada ku dhacday dawladda dariska ah dhan markaa martoo tir dadkaasi dad dhibaato ku dhacday way Soomaalida waa inaan baasaboor la weydiin waa in la ciqaabo waa in la sii daayaa dadkii ku jiray aniga hantidana waxaan ku lahaa walaalahayna ka mid bay ahaayeen dadkii sidaas ku badbaaday oo sidaas ku yimid marka waxa weeye dalka Soomaalida iyo madaxda waxaad ka leedahay magac dheer oo qaaliyaad ka leedahay oo aan la iskala ka damcina adigu aad kasbatay marka waxaan kuugu ducaynaynaa magacaaga iyo aragtidaada iyo waxqabadkaaga aad bay u dheeryahay haddana waxaan ku leenahay si wanaagsan baan ka filaynaa Allah ku darajeeyo waxa weeye waxqabadkaaga Allah la jiro anigu hobiyaan ay faysi hobiyaan deganahay masaajid mu'addim baan ka ahay magaaladana waxaan ka mid ahay odayaasha aqoonintooda jooga marka anigu hobiyaan rasmi aan ahay marka waxa weeye barasho wanaagsan walaalay hayo waa fiican aad baa